وارباهن madaxiis iyo mijiis ba qaawanayeen ilaa waqtigii dagaalkii dalka lagu xoreeyay kadib dhibaatadii iyo dhaawacii gaadhay ayuu fadhiid u ahaa alxamdulillaah muddo imika laga joogo 8 bilood oo halkan baynu isugu nimi dawlad iyo deegaan iyo NGO ama international aadaan ama national ha ahaadaani halkaasaynu ku ballan qaadnay inaan wax ka qabanno ballankeenii oo dhaqaaqay horta waa inoo farxade alxamdulillaah dhahaada shirkadda daryeel oo aad u dhiiratay oo sii bilowday iyadana waa hambalyeynayna xukuumadda kadib wax qabad wanaagsanna way muujiyeen wasiir iyo wasaare dhammaanba iyo madax dhaqameedba waxaanu leenahay iskuulkii dee odhan mayna sidan iyo sidan horena waa aragtay halkuu taagnaa maantana heer wanaagsan ayuu taagan yahay oo dhammaystiro finishingkii wax yari ka harsan yihiin waxaanu leenahay waanu aad idinku bogaadinaynaa dhammaantiin iyo intii ka qayb qaadatay oo ay ka mid yihiin khayra 21 naftiisu odayaashii deegaanka oo qaybtoodii qaatay xukuumadda barkeedii qaadatay NGO-ga siig iyo tabantaabo shoodhihiisa oo labaduba ka qayb qaateen waxa jooga golaha siyaasadda niman leeyahay siyaasadda sida xun u gelin toosinta iyo barnaamijyada wax lagu habeynayo had iyo jeer iyaguna naga taakuleynayay dhammaantiin waa wada salaamantiin maantana dhamaystirkii buu marayaa hadal badan ima furo dhiisha guntiga la iskaga dhigo yaan la isku riixin waxaan degmada cadaad leh hadaan nahay hambalyo gaar iyo guud buu direena xukuumadda Soomaaliland ay ku dhiiratay in dalkeennii dayacnaa iyo badeennii dayacnaa ay inoo mashruuceeyaan oo shaqaale iyo ilaalaba laga heli doono wanaagsan waxaanu leenahay wada ku garab taagan taana waa wadaysan ilaahayna annaga qudhayadu halkan saldig military cadaad li base leeyahay qudhayadu kuwa qaylnay waxaan leenahay annagaba qaar rabnayna loo keeno
annagaa ma rabna in naloo soo dejiyo badarwanaagii iyo cadaadii labada beys ee militariga cid burcad iyo balaayo bay ilaalisaa waa intaasna kaftanayga ahaato waa salaamantiin waxaan ku soo dhaweynayaa injineerka hadalka badi maayo maanta waxay ahayd uun xukuumaddii mashruucan maalgelisay la-aanteedna aanu dhismeen bal halkay wax marayaan inay aragtay kormeer ahaanun bay yimaadeen furitaanna maaha xaflad gaarana maaha intaasun baa loo yimid hadal iyo hilbaba kala qalan wasiir iskuulkan salaadiintii ka shaqaysay siduu ku dhismi lahaa way fadhiyaan suldaan maxamuud iyo ugaaskuba shirkaddii dhisaysay baan matelayaa laakiin waxaan ahaa dadkii jeclaa inuu dhismo isagoo cidlaa inuu istaago soo dhex taagay aynu dhisno dhiirigelintaa dowladdana xaaji aadan aan isleeyahay degmada waa ninka ugu magaca dheer wuxuu ii sheegay 25 sano inuu doonay iskuulka xaaji aadan baradho xaaji aadan axmed yiri iskuulka inuu hirgeli waayay 25 sano geed dheer iyo geed gaaban buu fuulay marka waa sida runtahay waa ugu mahadnaqaynaa dowladda dowladduna qabyo kama tagto maalintii horena hadal baan idhi hadalkii dowladdu waa ku dhiiratay waa naga aqbashay in iskuulkii ay u noqdaan budhig u noqdaan oo dhisaan maantana waxaan rajaynayaa insha allah inay qabyadiisa ka tegin inay gogli doonaan iskuul sida kaa sheekoo kale u shaqeeya inay dowladdu ka dhigi doonto waayo mashruucan oo kale mashruuc reer iska kiciya maaho waanu sugnoo sida kale aanu xubixinaa intii yaradee nagu qaybtay salaadiintaa ka warrami doontaanu shirkada kaan waanu dhammaystirnay laakiin wax badanoo shirkadda ka soo gaadhay ma jiro waxaa sheegi doonaan ugaaska iyo suldaanku way sheegi doonaan laakiin inuu iskuulku dhammaystirmo oo ama heer madaxweynaha lagu furo ama heer wasaaradaha lagu furo ee dhammaystirmo baan ku dadaalay marka albaabadun bay noo hadhay birta ahaa kii ugu horreeyay sambalkii waa la xidhay inta kalena waa lagu xidhayaa mashruucuna phase 1 iyo phase 2 buu lahaa phase 1ka intii lagu heshiiyey waa dhammaystiraynaa phase 2gii in fara badan oon ku jirinoo guryo bannaanka kaa iyo iskaroga maalin dhow jidhaan maqlayay iyo biyogelinta guryaha ay galaan macallimiinta iyo principalka iyo tawaangidoodii iyo waxoodii wixii aanu isnidhi imaka kama maarmayso maanaan odhan maxaa kontraaga ku jiray labada suldaanba wayeen horta wuxuu imaka ku dhammaystirmi lahaa wasiir waanu qabanay oo phase 2giya oo noogu jirin ayaanu qabanaanu raacinay wixii ka dhimanna dee si gaaraynu isku waraysan dee anoo magaca shirkadda iyo magaca deegaankaba ku hadlaya dowladda waa mahadnaqaya waa la isugu mahadnaqaa wixii iyadoo waajib tahay haddana dee intaasoo iskuul iyo intaasoo meelood baa qaranka baahihiisu yaallaan in priority la siiyey weliba maantana la eegayo oo eegidu aanay noqonaynin halkuu maraye baahidiisana la eegayo waa ugu mahadnaqaynaa qolada kale aan uga baxayo assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu anigoo ku hadlaya afka degmada Cadaadley odaygeediina waxaan qalbi furan iyo maskax caafimaad qabta iyo niyad faraxsan ku soo dhaweynaya dhammaan waftiga maanta noo yimid ee wasiirka ka kooban ee cuqaal ka kooban ee marti sharaf ka kooban ee dadkii wax loo qabtay iskuulkan taban sila ka kooban waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha Soomaaliland aad iyo aad wax u qabtay isagoo weyn oo ninka siyaasiga ee ninka wax qabtay in dadka u kala soconayn ee dhawab wax ka eegay waxaan leeyahay madaxweyne waa mahadsantahay ummadda Soomaaliland waxa uu qabatay anaguna haddaan degmada Cadaadley hoos ee dhaqanina u wareego anagu waa lumana gaaraysa bal iskuulka weeyay 25 sanadood intii sanad walba waxa loo yimaada laba wafti waa loo yimaada iskuulka wax ka qabanaynaa bay maanta ilaahay maxbana kama naqdan maanta ilaahay mahadi وينك أرك والله قبت وأنا كفر أحسن أنا ما أنت دام هو على لنا وحنا خالد قلنا ما أنتي كل سب بريج إلا دسي تذكر كفر حسين وفرحين بأنه ما أنت كفر أحسن مدن يسير محمد حاج عبدي يسير هكذا فرحان هيدا وحنا الله يسير هذه هراء قعدت هذا ولا سعد كودنا وأنا غيره وحنا نتشعله إن تصعدك iyo ilkay gidda waxa la gorowada bahashan waa ishii ku kurisaa la dhalmada waxay dhashaa beed way aastaa way iskaga tagtaa marmar ma soo wareegta marka waxaan jecelahay dad wasiireetii aan eegtaan oo anaguna baahidayada idin sheegano
baahida koowaad maanta noo taalla cadaadle haddaanna ninkastoo jandeerkii biyaha maalin dhaweed la keenay foosada taalla hawd ku taalla ogaadeen ku taalla biyaha iyo cadaadle waa isku qiiba 10 kun baana laga siiyaa foosada biya waxaanu jecelahay ceelkii maalinta dhaweed wasiir la jineerku waagay inaad dhagaxa noo dhigto oo insha Allah ilaahay mahadi biyo badan noo soo saar waxaanu jecelahay xagga waxbarashada iyadoo yarqawaadna hadaanu dadweynahana ina xagga waxbarashadana aad noo egtaano macallimiinta noo gumaysaan macallimiintana noo tayeysaan noo tababartaan waxaa kaloo meesha ku jira wasiir oo sheeganayna Samson Cabdi Aadan dalka ilaahay oo dhan waxay siisay ambaraska imka amsiyaashka iyagu 18 sano u dhisnaa ambaras male waxba male shaqaale 3 qof oo loo keentay ururka bisha cas mooyaane qof kale oo shaqaale ma hayno qof mushaar ka qaato ma hayno waana arki doontaa hadii ay ka dhigo waxaan jeclahay inaad amsiyaashkaana 3 qof oo shaqaalaha noo soo kordhisaan oo dawladii weyneed baa tiini oo shaqaale waliba tayale oo xirfad leh aad noo keentaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u nimi waxay ahayd iskuulkii aynu soo bilownay dhismihiisa aynu ka kaashanay xukuumadda oo inta badan bixinaysay iyo dadweynaha deegaanku halku marayeen aragno si aynu uga tashanay intaynoo hadhay gabagabeyntiisa meel wanaagsan uu marayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay waa u mahadnaqaynaa kii dhaqaalihiisa ku soo bixiyey mid xukuumadeed iyo mid shicibba shirkadda daryeel ee dhammaystirtay oo iyadoo lacagta ka maqantay dhammaystirtayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaynu leenahay uun inta hadhay aan dhammaystirno wasiir weliba waxaanu leenahay xadhig ahaan ka jarno inta xukuumaddii jirto ee xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siyaay joogto magaca xukuumadda qaadatay wanigi ma ka sheekeynayo maalin baan waqtigii dawladdiina riyaalays ugu keenay wafti fara badan saa laga sheekeynayay ilaa 10 jeer baan waftiye iskuulka dhis ku casuumnay oo casuumadda dadka deegaanka qabnay oo waxa jaadan Axmed Diiriko ka ahaa xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siyaay ka masaxday halkaana waxaan ku bedelaynaa ku qoraynaa intaasoo halku dhagi xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siyaay waxaan leenahay wasiir aan xarig ka jarnay inta xukuumadda la jirto aan dhamaystirno aan qalamayno oo inta kaysa sheegay ka dhinayd kontraagana annagu ku haweerno wax badan baan war ku darkana kamu dhanayna ku darbaan lahayn anagu waxmaan akhriine kaysa ku darbaan lahayn laakiin wax badan baa soo baxay marka rag cilmiga hayaan oo leerka wixii shidayay leerka kale inuu geliyo sababka ku wada xiray laakiin mashiinadii shidayay iyo dab soo qaadista ama solar hadii laga dhigay systemka kuma jirin kontraagii hore biyo soo saarista iyo taangideedii hawshaasna kuma jirin marka ayana waxaan leenahay taana dhamaystirno sidii un baynu u qaybsan doonaa inuu qaybsanno waliba wada naga badsanay ilaa qalabayntana wasaaradda waxbarashada balan qaadee agaasimo wasiirkiina naga gaaro iskuulka uu dhamaaday naga gaarsiiyo uu dhamaaday qalabayntana ku daraaniraan waxaan anagu inay wasiir halkan idinku sheegaynaa haddaanu nahay deegaankan degmooyinka cadaad iyo sabab wanaag xukuumadda Axmed Maxamed Siyaay inta ay jirtay 5 sano la doortay inta loo kordhiyaba muxaafid baanu ahay mucaaradna kumaanu ahayn waxqabadkana iskuulkan iyo waxyaabo yar oo kala badnayn baa naga soo gaaray waana naga badsaday maanta waxaanu leenahay hanaga tagto intii u dambeysay biyaha meel walba laga soo tuuray degmooyinkana la midka salax la ka soo jirta xariga ee balaguwada soo dhagax dhigtay laba rig oo dhagax dhig wada maanta sidii wiilka xigaan helo wasiir intaas waa codsi waadiga arkay calaad lidoox biyaha lagu taadurdura cabashadii koowaad oo adeeg soo jeedinay biyaha bal maxaad u maran dhulkii oo ma ahay miyigana hadalkeeda bada taasoo looga dhaamiyay biyaha way wada geel ceel walba laga tago siig baa la isla galay maxamuud xaashi wasiir wax badan baad qabatay oo dalka iyo dadkaba u qabatay suldaanka kulay in badan ku taabtay xukuumaddaadu waa xukuumaddii wax qabadka dhalinyaro badanna way shaqaalayso wasiireeyo meel walba way gaadhisay marka anaku waxa naga helaysaan xishood taageero iyo garab istaag idinkuna waa ina noo garataan qofka xishooday wixii uu leeyahay marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wasiir mar walbana waa idin garab taaganahay waxaanu kaloon u mahadnaqayaa qoladii iskuulkan ku dhiiratay ee deegaanka ka socotay khayra 21 oo shaqadan bilowday waa mahadsantihiin assalaamu calaykum dadka soo shirkan ka soo qayb gashay way mahadsan yihiin runtii wasiirada iyo salaadiinta iyo ogaasyada iyo nin walba waxaan ku salaamayaa magacu leeyahay maamuuska in degmadeenaynu joogno maalintii kaambeynka la khatimayay madaxweyne maxamuud Siyaay aan halkan la soconay waa degmadii uu ku soo khatimay maalintii madaxweynenimada uu helay
runtii anigu waxaan isleeyahay markii hore hadalka kumaan talagelin niman yahow qabyaaladdu waxa ma tarto haddii qabyaalad laynoogu buuxiyana waxba inoo kordhin mayso cadaaladdaa wax tarta gurigaa quruxda badan leh waxaa wax taray cadaaladda yaa wax siisay madaxweynuhu wuxuu garanayaa maalintii la dhisay buu garanayaa wuxuu ku dhisayna maanta reer somalilan oo dhammi inta siyaasiyiinta isagay ka soo baxeen isagiiyo sheekhii waxay ahaayeen runtii waxaana magac maanta xukuumaddan maanta joogto ugu filan anigoon markii hore islahayn anugu hadal dee waxaa laga qabtay yaa magac ugu filan sheegmana runtii uma baahna waxaanaynu nahay dal yaroo curdina maalin lama wada dhisi karo maalinba in baa la dhisayaa waxaynu xukuumadda leenahay dadaala kuway naga maqanna waxba soo hadal qaadi mayno la dadaalayaa waxaynu leenahay wixii qabyo ee jira ee tusaale ahaan biyahaasoo kale uu suldaanku soo qaaday imayo Ethiopia imaka xoogga waxay saartay biyaha haddii laba baktiyo dama ambalaas baa la helaya waxba la helay biyuhu waa priority-ga koobaad maanta dadkeenu way xooli way ka baxeen way caydoobeen waxaynu u baahannahay wasiirayaal inaynu gurigaa quruxda badan ee la dhiso Somaliland inay ka tashato waxaynu ka dhigayno oynu dadkeenu ku soo xareyno oynu dadkeenu wax baro maanta islaam waliba inta xooli ka baxeen bay 10 caruur meel ku haysaa waxay u baahan yihiin aqoontii keeni leed halkan iyo maskaxdii uu fikiri leed ee halkan keeni leed baynu u baahannahay waayo intaynu xoolo soo maray waxaynu soo soconay 90 kilomitir maxaynu xoolo soo aragnay anigu in riyaan arkay laba meelood baan riyo ku arkay in yaro riyo joog waxaynu u baahanay wasiiradeena aqoon-yahankeena ganacsatadeena salaadiinteena ugaasyadeenu inaynu ka fikiro dadkeeni maanta waa ka mid waliba geed yar buu hoos joogay inaynu maskaxdeena iyo aqoonteena gelino madaxweynahana waxa ka wakiila wasiiradiisii way nala joogaan ayaga gaarsiin doona waxa kale inuu mahadnaqaynaa runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaan u maleynayaa reer Somaliland maanta nin la daa oo la siyaasada oo inaga dambeeya uu yar yahay taariikh wanaagsan hadaynu nahay reer cadaadley uu inooga tagay markuu iskuulka inoo dhisay runtii waxaynu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa Kayse Shukri iyo Daryeel oo wixii amba shacab ballan qaaday amba xukuumadda aan wali soo wada gaarin aan dhamaystiray aad iyo aad baa idinkuna u mahadsantiin runtii waxaan kaga baxayaa hadalka waan badiyay wixii qabyo ah maanta reer calaaliye reer saba wanaag abaartu way ka daranta bari haddaad tagtaan waa tacajabi doontaa meeliba meesha bari ka xigto kulkaan waxaan kaga baxayaa runtii si qurux badan oo cadaalad ku jirto oo dadka wax ugu qaybiya dee iskuulkan taariikhdiisa waa laga soo jeekiyay maalintii la bilaabayay iyadoo waliba deegaanka saba wanaag iyo cadaadle uu ahaa dawladdii ugu xilka dheereed ee soo martay Somaliland ee riyaale udub 8 sanadood ama intii jirtay u dhisin waayay iskuulkan iyadoona waliba ugu udub tahay inta yadaada ganacsatay hadday siyaasiyiinta yad tahay waxaanu haynu noo dhisi waayay kuwii horena uu noogu dhisi waayay maalintii aanu bilaabaynay shirkadda Daryeel Suldaan Maxamuud yaani iyo Kaysa isku nimid Kayso ka soo noqday saba wanaag oo saba wanaag soo wada marnay hoolkii la dhisay martida halkan aanu kano gidaarka yar baanu fadhiisanay saddexdayadu waxaanu ku maxayna yaalaa iyo laba injineer intaan qiimeynaan la tagno xukuumaddan ula tagno ilaahay idinka way naga aqbashay shacabkii baan ula tagno waa naga aqbalay 20kii kun ugu horeeyay qasnada waxa ku shubay Aadan Axmed 10kii ugu horeeyayna shirkadda Daryeel baa ku dhistay intii kalena xukuumadda ku tartay maalintii dambe wax la igu yiri Suldaan Maxamuud iyo baayay waxa igu yiri meel wanaagsan buu marayaa adigu Maxamuud Xashuut ayay Kaysi guuran waxaad ku tiraahdaa intii ku dhaneed soo dir isha biidmillaahi maanta waxaanu joognaa iskuulkii oo jinkadu saarantay daaqadihii la geliyey la hinjiyey saliigii lagu xidhay dee way nagaa fadhina maanta macni waa ilaahay mahadi wax 25 sanadood la dhaqaajin kari waayey
inay qoladeennan dowladdeennan iyo xukuumaddeennan ku guulaysato waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa waa idinku mahadnaqaynaa waxa raaca mashruucan maalintii la bilaabayey 3 5 4 mashruuc ayaanu bilowno waxaan ugu war xukuumadda way dhowday xilligeedii iyo intii hore waynu ciyaarnay aynu imika sii weydiino maxamed cali mid wadadu ha wadada hala dhagax dhiga baa midina iskuulkan waxa midina iskuulkii bal kaliil buha midina waxay inaynu helo cadaadleeyo helo ambulance midna waxa riig inaynu laba riig helo iskuulkan uu fulay wadadiina uu si wada dhagax dhigteen iskuulkii dalaadna waxba laga qabtay iskuulkiisa warana waxa laga qabtay maxaan noo haray halan banaaso farya iyo labadii riig iyo wadadii haleehay way soo dhaweynayna waliba beesha deegaankuna abtay ku tahay adiga marka laga tago wasiirada kale abti de waxna mustaqbal badan waad leedahay waxaan hadalkay ka baxay wasiir ku soo dhawow wax qabadkaagi ku soo dhawow degmada Cadaadiyada dibadda sama wanaag oo dadkoodii oo dhan ay kula socdaan iyo golihiisa wasiirada wasiir farxaan oo dhalinyaro iyo agaasimi guud wixii naga dhiman iyaga laftooda noo buuxbuuxi waa ku soo dhaweynaa ku soo dhawow wasiir assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii wax badan oo aan halkan ka oranayo oo haddaan shidaa tiri dalka laga qabtay oo fara badan baa jirta oo aynu ognahay intii xukuumaddani joogtay waxaan rajaynayaa wax badan inay qaban doonto inta uga hadhay muddadeeda iskuulkani taariikhdu in fac weyn buu lahaa taariikhdiisii waxay soo nooleysay xukuumaddan imika joogta ilaahayna markii halkan imika waxaan u maraynaa in wixii qabyo ah ee dhammaystirkiisa oo isagoo aynu aragno shaqaynaya inay noo suurto gasho muddadaa kooban ee xukuumadda u hadhay indhaynteedii baan u joognaa utashigeedii oo wasaaraddii waxbarashadu marayso maalintii hore la bilaabayey ballan qaaday inay qalabayso kana shaqaysiiso halkan bay maraysaa maalintaana wasiiru dowla marayay maantana agaasima marayo maalin badda oo qorisudhiwa nin baa joogay waxaan rajaynayaa kolley in wasaaradda uu ka wakiil yahay wasaaradda waxbarashada cabdi cali dadka deegaankana aad bay uga qayb qaateen xukuumadduna ballanqaadkeedii waa fulisay waddadana uu ku daray ugaaskuna waa dhammaystiraysaayo hawsheeda wasiirka waa ka wada soconaayo waa fulaysaa wakhtiga ugu soo dhow insha allah in la dhaqaajiyo labada riigna biidni illaahi tacaala iyagana horta waa mid waan ogahay oo waa ku jiraa qorshaha in la dhammeeyo ka kalena baadidoonkeedu waa ku jiraa waxaan rajaynayaa waxyaalahaasoo dhan inay noo suurtogalaan muddadaa kooban ambulanska waxaan u mahad celinayaa wasiir samsam oo ballan qaaday suldaanka markhaati ka ah suldaan maxamuud waa kaa ila fadhiya waan la hadalsiiyey mahad ballaaran baan samsam u naqayaa hawshaa ku baahdayoo halkii ay tagtaaba waa somalilan haddii ay nagu dambayniyo hadday nagu horeynaba halkay tagtaaba wasiir samsam waa somalilan dad somalilana weeye maalinta qoys reer somalilan qadeeyo waxa weeye ka kalena waa soo socotaa marka waxaan leeyahay mahad ballaaran baan u naqayaa samsam ballanqaadka ay bixisay waanay keenaysaa waan hubaa inay keenayso biidni illaahi tacaala waxaan u cuurdaarayaa wasiiradii ay halkan soo raacaan oo wasiirka arrimaha guduhu ka ah buu nagaga hadhay oo uu xanuunsanayey samsam lafteedana qol hawle ku hadhay dee haddii wasiirka madaxtooyadu marayo wasiiradii o dhan waa maraya waxaan odhanayaa taana anoo samsam uga mahad celinaya hawshaa tanna way ka qayb qaadanaysaa siday u dhammaystirmi lahayd waayo dee wasaaraddii maaliyadda weeye dhaqaalaha dalku ama waxbarasho ha loo geeyo ama duulis ha la geeyo ama meel kale ha loo geeyo miisaaniyadda dalku waxa gacanta ku haysa wasaaradda maaliyadda marka maadaama ay gacanta ku hayso qalabayntiisa iyo u tawaabashaysigiisa inuu iskuulkani shaqeeyana gacan weyn bay ku leedahay waana uga mahad celinayaa ama ha joogto ama ha maqnaato runtii dalkana wax badan bay ka qabatay waxaan si khaasa u mahad celinayaa oo gaara wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi oo runtii kaanin lama ilaaman oo mug weyn ku lahaa taabagelinta iyo inuu suurto galo dhismaha iskuulkani waxaan u mahad celin iyagana shirkadda daryeel oo runtii dee aa ogtihiin oo hantideedii ku bixisay xukuumaddu way bixisay lacagteedii weliba deegaankeenna runtii intaynu qorrayn wax badan baa ku maqanoo waan ogahay laakiin iyadu usii hagar baxday oo bixisay ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo hiraalkiisii iyo higsigiisii iyo himiladiisiiba ay tahay hawshan inoo suurto gashay waxaan rajaynayaa biidni illaah
dad caruurtaas soo caydhooday xooluhu ka baxeen ee aan maanta aynaan haynin mihnad kale ku manaafacaadsadaan inay dhismaha iskuulkaasi mustaqbalka u noqdo sidii siyaasiyiintii horeba u noqday mid u suurtogeliya inay noqdaan kuwii kabi lahaa dalkan horumarintiisa madaxweynayaasha mustaqbalkuna ay ka soo bixi doonaan ardayda maanta xoolahoodii ka caawidhada soo geli doonta iskuulkan insha allah innagana taarikh wanaagsan bay noo tahay waxaan rajaynayaa inay xukuumadduna waan ogahay inay fulin doonto inay dhammaystirto hawsha wixiiga kaga soo aadan innagana waxaa laynaga sugayaa deegaan ahaan inaynu wixii naga soo aada inaynu dhammaystirno waa mahadsantii wassalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dowladdan maxaan ku dhahdaa kulmiye uu hogaaminayo axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaan filayaa inay tahay dowladdii ugu horreysay ku dhiiratay in ay iskuullada bordanka wax ka qabato iskuullada bordanka inaad ogtiin mooye xagga taariikhda marka la eego waa iskuulladii waxaa ugu dambeeyey goor iskuul bordana la dhiso ama wax laga qabto xataa dowladihii soomaaliya o dhan waxba kamay qaban waxaa ugu dambeysay dowladihii gumaysigii baa inoogu dambeeyey marka imika waxaad ogtiin inay socoto iskuulkii dayaxa ayaa socda laascaanood iskuul bordana isna ka socda oo weyn oo maxaan ku dhaha noqonaya iskuul bordana iskuulka bordanka marka la dhisayo kharashkiisu aad buu u badan yahay hawshiisuna aad bay culus tahay taasi waa ta keentay in dowladihii kala dambeeyey soomaaliya o dhan ku dhiiran waayaan inay iskuul bordana sameeyaan marka inaad ogtiin mooye waa ilaa imika iskuullada bordanka haddaad dib u raacdaan waa iskuulladii ka soo jeeday xilligii gumaysiga marka waa markii ugu horreysay runtii kelmadda markii ugu horreysay halays bay noqotay laakiin tani waxa weeye waa run weeyaan ma haddii halays tahayd waxaynu ka hadlaynaa dee taariikh ay wada nooleedeen baynu ka hadlaynaa ood soo wada taagneydeen maxaan ku dhahdaa isaga sheekeyn mayno maxaan ku dhahdaa wax khayaaliyahoo dhul fog ama meel fog maxaan ku dhahda laga sameeyey waa wax waddankeennii laga sameeyey baynu ka hadlaynaa marka runtii cadaadley iskuulkan cadaadleyna waa iskuulladii bordanka ahaa ee runtii waddanka u ahaa maxaan ku dhahdaa udubdhexaadka u ahaa waxbarashada waddanka udubdhexaadka u ahaa marka nasiib wanaag weeyaan in maanta dowladda maxaan ku dhahdaa ama xukuumadda uu hogaaminaya axmed maxamuud silaayo ay iskuulkanna ku darsato taariikhdeeda oo iskuulka bordankana ay sidan ugu soo gurbato ay wax ka qabato kaasoo ilaa burburkii aan waxba laga qaban kelmadda labaad aan odhanaya waxa weeye runtii waa kelmad aan ku saabsan bulshada iyo kaalinta ay kaga jirto horumarka mar waad farxaysaa markaad aragto maxaan ku dhahda dadkii degaanada iyo magaranaysaa degmooyinka kala duwan oo is abaabulaya oo waxbarashadii kaala hadlaya maalin kasta waxay noogu yimaadaan wasaaradda waxbarashada waxay ka hadlayaan odayaashii iyo cid waliba waxay ka hadlaysaa degmadeedii ha loo qabto iskuul ha loo dhiso waxaad arkaysaa waxay tegayaan wasaaraddii biyaha waxay odhanayaan ceel hana loo qodo horumarkii ood mooddo in bulshadii ay waddo ya de waxa weye waa mid lagu farxo weeyaan oo waa heer loo baahan yahy in la gaadho in mas-uuliyadda ay qaadaan mana doonayna in taasi ay hoos u dhacdo oo dub noqoto laakiin dhan kalena waxay u yar baahantahay toosin bay u yar baahantay oo waxay keentay way nala yar magaraysaa fogaatay markaa xadkii bay ka yar baxday magaraysaa marka dambena way nagu soo noqonaysaa oo waxtarkii waxyeelu noqonaya haddii aan la qaban oo aan dariiqa saxa ah lagu hagaajin waayo imika haddaan waxbarashada kale tusaale ka soo qaado iyadoo lamid wasaaradaha kale lamid yihiin waxay odhanaysaa tuulo kasta waxay odhanaysaa iskuul ha naloo dhiso iskuulkii marka loo dhiso iskuulkii cid gelaysaa ma jirto qaar baa lagu xareeya adhiga ya qaar marka tagtana afar qof ayaa afar ardayo yarar baa fadhiya ya deedna marka loo sameeyo tuulo kasta iskuul loo sameeyo iskuulkii ay cidgeli weydo ama afar ardayo yaryar ay fadhiyaan iskuulkii macallimiin ma helayo wixii uu baahnaa agabkii uu baahnaa ma helayo taasi waxay keenaysaa marka in resourcekii iyo khayraadkii ay waddanka lahayay uu baahay keenaysaa oo ay waxba tari weydo waxa taa bedelkeeda loo baahnaa inaan qorshihii dhexeed dowladdu inaga lumin ya oo imika dee dadkii axad moodaa inay horumarkii gacanta ku qaateen marka hadee jeer waxa la yidhaha sharciga gacanta lagu qaata aniga waxaan leeyahay imikana horumarkii gacanta lagu qaatay hala dhigo horumarka oo yaan laga noqonin mas-uuliyadda ay sasaarayso deegaanku sasaarayo laakiin dowladda dhexe iyo qorshaheedii ha ku soo noqdo haddii kale khasaara dhacayo waxtarkeenaasi khasaaru noqonayaa oo waxa weeye dib buu inoogu soo noqonaya isagoo oo waxyeelaa buu inagu soo noqonaya marka iskuulladii waxaad arkaysa dee aad arkaysa xaalkooda waxaan filaya inay sidaas soo kale tahay MCH-du inay saa yihiin wasaaradda caafimaadku inay wax soo saar waxaan ku dhaha waxqabadkii o dhani inuu saa inaga noqday baan filaya marka waxay u baahan tahay in dariiqii qorshihii dhexe ee balaanka iminka matalan haddii iskuulkan markii la sameynayey ee cadaadle laga sameynayey iskuulkan
hamoodina in reer cadaadley loo sameynayay saasaad u malaynaysaa ya dadkii dhigan jiray waa garanaysaan dee reer cadaadley may dhigan jirin dee soo maaha qorshaa lagu dhigay halkan qorshaa lagu dhigay iyadoo laga fikirayo inta degaanadu u jiraan degaan weliba inta u jiro iyadoo laga fikiraya marka haddii aad naga dayn weydaan ma garanaysaa maxaan ku rahdaa qorshe maxaan ku rahdaa waxqabadkan indhaha la oo waxqabadkii indha yeelan waayo oo qorshihii dowladda loo dhigi waayo waxa dhacaysa marka dambe in horumarka waxqabadkaasi isu bedelo horumar la'aan bay isu bedelayaan marka dambe marka qorshihii dowladda dhexe insha allahu tacaala inaad idinkuna ku tala gashaan idinkana baahidiinna marka soo gudbisaan la miisaamo la qorsheeyo halkay tahay la dhigo iminka waan hubaa iskuullada yaryar ee faraha badan leeyahay iminka ay degmooyin badan leeyihiin waxaa u dhaami lahayd iyadoo iskuul dhexo boordhana meel dhexe inta loo sahmiyo iskuul boordhana looga sameeyo dhammaantooda keenaan halkaasay macallimiin wanaagsan heli lahaayeen iminka iskuul kasta macallin ma heli karo waxaasoo iskuulla macallimiin looma hayo waxaasoo iskuulla arday looma hayo camirta marka waxa weeyaan iskuul bay degmadeedu leedahay hadday faan noqoto ya anigu waxaan leeyahay faan maaha waxani waa qorshe waa dhaqaale waa horumar baa laga hadlaya maaha faan waxaan laga hadlaya wixii la wada leeyahay la qorsheeyay ayuun baan wax noqonaya kelmadda saddexaadaan kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan kaalinta kaga aadan wasaaradda waxbarashada iskuulkan runtii annagu iskuulkan mar haddii halkan la soo gaadhsiiyey farxad weyn bay noo tahay maanta culays weyn oo nalaga qaaday ayaanu aragnaa runtiina inaanu iminka qalabayno oon la wareegno mas-uuliyaddiisa midna laga baryayo maaha iyo weliba wixii aanu ka qayb qaadan karna iminka qabyadiisa intaba diyaar baanu nahay waayo waa mas-uuliyaddeedii weeyaan waana hawsheedii naloo egmaday weeyaan marka taasaanu insha allah tacaala aan diyaar intaasaan kusoo gabagabeynayaa asalaamu calaykum raxmatullahi iminka waxaan kusoo dhaweey xaashi cabdi ilaahay baa subxaana wa tacaala ku mahadsan inoo fududeeyey nolosha iyo nimcooyinkiisa kala duwan saaka runtii hadal badan halkan kuma jiro waxaanu u nimi inaanu kormeero una kuurgallo sida ay u socoto sida uu u hana qaaday ama u socday iyo heerku marayo dhismihii dugsiga cadaadley iskuulkani wuxuu ahaa iskuul caana taariikhda bulshada somalilan ku xardhan rag waaweyn oo maanta qarankan ka taliya ay wax ku barteen maalintii horea laga sheekeeyey rag badanoo wax ka bartay baa nala socday oo maalintii aynu bilaabaynay halkan ka waramay runtii waxaanu loogu talagalay iskuulladii boodhanka ee ugu hanaqaadka horreeyey wakhtigii xilligii somalilan ay ku jirtay maamulkii dowladda ingiriiska ayaa la sameeyey iskuulkan iyo iskuulka boardingka ahee muxuu ahaayey dayaxa iyo ood weyne iskuulladaas waxay iskuulladii lagu soo bilaabi jiray dugsiyada hoose sheekh iyo waxay ahaayeen iskuulkii secondary buu ahaa iyo camuudba markii dambe waxaa iskuulladii boardingka ahayd dadka dhallinyaradaa xoolo dhaqantaynu ahaan jiray dadka xoolaha inta laga soo kaxeeyo ama tuulooyinka halkan lagu habayn jiray lagu tababari jiray waxna waa lagu bari jiray waana tarbiyadna waa lagu siin jiray waana isdhexgalka bulshadana qayb bay ka qaadan jireen oo inan gebinay laga keenayba halkan la keeni jiray ama berbera laga keenay ama laga keenay muxuu ahaayey deegaanka oodweyne area ku dhow iyo meelo kaleba iskuulladaasi nuxur iyo xikmad bay xambaarsanaayeen nolosheenii waxbaa iska bedelow dad badan baa magaalooyinkii soo galay waxaynu saaray xoog iskuulladii magaalooyinka ee dheyga ahaayee ardaygu rawaxi jiray hase yeeshee iskuullada boardingkaa wax weyn bay xambaarsan yihiin xukuumadda axmed siinaayo waxaanu runtii vishinka iyagu dhinaca waxbarashada uu yahay in dib loo soo nooleeyo iskuulladii boardingka ahaa iyo in xoog la saaro dugsiyada farsamada gacanta oo iminka dalka ku yaraa waxaan jecelahay maalinta aynu furayno ayaa hadalka mucdiisa aynu halkan ka odhan doonaa waxaan jecelahay inaan u mahad celinno shirkaddii dhistay dhismahan qiimaha le dhammay wadda gacanta ku haysa gebagabada uu hadda ku dhow yahay waa shirkadda daryeel guddoomiyana maanta inala jooga kayse waxaan kaloo jecelahay inaan runtii halka uga mahad celinno
bulshada reer cadaadley iyo sabawanaag ay nagala joogaan ugaaska iyo suldaanka iyo hawsha nagala qayb qaatay iyo khayra toban deegaanadu xukuumadda axmed siilaanyo waxa ay abuurtay jawi iyo himilo bulshadu inay wax qabsan karto inay isku tashan karto bulsho kasta oo wax la timaada siyaasadda xukuumaddu waxa weeye inay wax ku biiriso waxna ku tarto isna garab taagto laba ujeedday salka ku haysaa dhaqaalaheenna iyo itaalkeenna oo yar inaynu wax isugu tegi karno wax badan dowladdu keligeeday qabataa laakiin waxaa jira mashaariic ay bulshada la kaashato iyo mashaariic ay beesha caalamka iyo dalalka aynu saaxiibka nahay ay la kaashato iskaashigaasi maadaama dhaqaalaheennu yaryahay waxa aynu qorshayno waxaynu uga jeednaa inaynu isku tashanno wax isku biirsan karno mar labaad waxaanu uga jeednay in laxajeclada bulshadu ay saamayn ku yeelato marka hantideedu wax ka galaan deegaanka hantidu way xanuun badan tahay waatii labadii wadaadee isu dhunkanayey ismucaanaqeeyey waa kii ninkii yidhi laxajecel aan dhex marin adduunku iyo laxajecladu waxay leedahay adduunku laxajecelu leeyahy ereygaasuu leeyahy in la dareemo hantida meesha gashay la dhowro bulshadu u feejignaato siyaasaddaana waanuga golleenahay mashruucani waxaa mashruuc weyn waa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa nagu guuleeyey runtii muxuu ahaayey xukuumad ahaan in aanu dugsigan aanu nasiib u helay inaanu dhisno waxay ka mid ahayd ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee odayaasha deegaanka markay ula yimaadeen uu ballan qaaday wax kastoo madaxweynaha iyo xukuumadda madaxweyne siilaanyo aanu ballan qaadna ama dhagax dhignana bulshada somalilan waxaanu u sheegaynaa inaanay baaqan dhagaxyo beena meel lama dhigno dhagaxyo runaanu meel dhignaa waxaanu marka muddada gebagabadana waxaanu odhan doonaa waryaanu dhagax meela u dhignay baanu odhan doonaa tartanna waa jiraa waa dhab madaxweyne siilaanyo murashax maaha laakiin xisbigiisu waxbuu doonayaa dabeedna bulshada waxaanu odhan doonaa de waa nala qabsanaya haddaanu meelo dhagxaan beena dhigno marka runtii waxaan leenahay xaflad qiimale baynu qaban doonaa iskuulkan waxaanu ballan qaadaynaa sidii agaasimaha guuda waxbarashadu uu sheegay inuu shaqeeyo oo aan xoologelin tacabkeennii oo aanu noqon meel muxuu ahaayey afka ka oodantaynu lacag gelinay sanad dugsiyeedkan 2017 bisha sebtembar wuxuu noqon doonaa iskuul shaqeeya haddii alla ka dhigo waxaynu furi doonaa xilli ka horeeya ayaynu furi doonaa agabkiisa iyo qalabkiisana waanu ballan qaadaynaa xukuumad ahaan iyo macalimiintiisa iyo wixiisa oo dhan iskuullada boardinku siduu agaasimuu sheegayey way ka kharash badan yihiin iskuullada caadiga iskuullada caadiga macalimiin baa la keenaa silbisna waa la keenaa waa laga dhaqaaqaa laakiin iskuulkani wuxuu doonayaa mas-uuliyad aada u ballaadhan si uu hana qaado oo u shaqeeyo xilkaasna ilaahu waxaanu ka baryaynaa inuu noo fududeeyo intaa marka laga tago waa ka mahadnaqaynaa deegaanka cadaadle iyo sabawanaag waxaanu qiraynaa in ay degaamada xukuumadda kala shaqeeya horumarka nabadgelyada iyo himilooyinka toosan inay yihiin waa qiraynaa waxaanu leenahay sidii aynu isu garabsan jiray maantana aan uga wada shaqayna qarannimadeenna difaaceeda nabadgelyada iyo maamul wanaagga iyo midaynta ummadda aan ka shaqayno waxaa jira dad badan oo ku foogan in nabadgelyadeenna la dhaawaco waxaa jira dad ku foogan in midnimadeenna la dhaawaco waxaa jira dad ku foogan qarannimadeennu inay xumaato waxaynu leenahay cadow badan baynu leenahay maanta shacbiga somalilan ummadda somalilan xeelo ay ku kala jiraan iyo xisbigay kala yihiin waxaa la gudban inaynu goridda isgelino tunka cadowga u buuro qarannimadeenna difaacno nabadgelyadeenna adkayno horumarka dowladda ku taageero ay wado muxuu ahaa si nadiifana aynu u tartanno qabyaaladda dhowro qabyaaladda iska ilaalino ummadda aan la qaybin aan la isnacsiin xisbiyadu ay dadka kala kaxaystaan
mabaadi ku kala kaxaystaan aragti siyaasadeed ay ku kala kaxaystaan nin waliba xero ooto wixii u gala nasiibkiisa ay noqoto kii u xela aynu haniyeyno oo aynu siyaasad muddo kara oo qaangaadha aynu ku shaqaysano oo aynu tartanno aqalka gudihiisa laakiin aqalkana aynu ilaashano isu haniyeyno kii muftaaxa helana loo dhiibo oo lagula shaqeeyo sidaasaynu ummad ku noqon karaa oo meel ku gaari karaa oo aynu noqon karaa qaran jira dhaqaalahaynu ku kori karaa haddiise aynu isrifno midba mid dabagalo xisdi iyo xasalad iyo aynu iskala dhammaan weyno meel gaari mayno waxaynu noqonaynaa reerkii uun dawacadu yeelaha iyo ka cuntaye ay tiwole reeraan ogahay ma guuro intaana runtii dardaaran bay iga tahay arrimaha odayaashu ka hadleen waxaan leenahay waxba akran mayno ceelkeennu waa iska biyoyarow dayrina mayno waxaan leenahay dadka waa u dharuuraynaa wakhtigii ugu dambeeyena waa ku jirtaa dowladdu doorashooyin iyo abaaro iyo howlo badanna way jiraan waynu dharuuraynaa dharuurtana ummadda waa u qaybinaynaa haddii alla ka dhigo muxuu ahaayey sidaa wasiirka duulistu sheegay hal ceel baa u qorshaysan wax rasmiya waxa weeyaan oo ballanqaad rasmiya labadan degaan sabawanaag iyo cadaadley ceel baan u qorshaynay ceelashan iminka ugu horeeya ee laynagu caawiyey ceelashana dadka si cadaaladaan ugu qaybinaynaa muxuu ahaayey wixii inoo soo kordhee kale ceelal badan baynu filaynaa in ay dowladaha islaamka ee kuweydiya inagu caawiyaan imaaraadku waa tixgelinaynaa baahida labaad laakiin ceelkaas daraasad baanu qaadaynaa cadaadley iyo eryada samawanaag halka ugu habboon ee ugu biyo wanaagsan ee ugu biyo macaan daraasadaas halkay ka soo baxdo ayaynu dhagax dhigaynaa dhowaanna waa la bilaabi doonaa ceelkaa daraasadiisana wasaaradda biyaha ayaanu xil saaraynaa wakti horeba waa u xil saaray jawaabtii baanu ka sugaynaa taana intaasaan leenahay arinta ku saabsan ambulanska mar haddii wasiirka maaliyaddu ballan qaadayna iyo muxuu ahaa iyadana wasiirkana waa u mahadnaqaynaa wasiirkuna galbeed qura isha kuma eegee ambulansyada wasaaradda caafimaadkana way ku wareejisaa bari iyo galbeedna wiigii dhowata xaaji saalax baanu ku wareejinay dadkana waxbaynu u qaybinaynaa muxuu ahaayey waxanala siiyo waa dow waxanala siiyo hanala eegana waa dow muxuu ahaayey waxaan leenahay wixii waddadana arrinteeda wasiirkaa ka hadlay iyadana qorshay dowladdu u leedahay degaankuna waa dadaalay waynu wada riixaynaa mashaariicda waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaa inoo ballana inaynu isku kaashano wanaha iyo wanaagga iyo samaha sidii allaba ila faray xumahana aynu iska reebno aad baa u mahadsan